wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa saaka si ballaaran loogu soo dhaweeyay deegaano badan oo ka kala tirsan gobolada Sool iyo Buuhoodle waxaana wafdigu sii mareen saaka subaxnimadii hore deegaanka Dhawansaar iyo sidoo kale deegaanka Ballehara iyagoo ugu dambeyntii gaaray degmada Wudud ee gobolka Buuhoodle waxaana halkaasi wafdiga si maqaam sare ah ugu qaabilay shacab weynaha degmada Wudud iyagoo kaga hor yimi hilaadii meel 5 kiiloomitir u jirta degmadaasi odayaasha cuqaasha iyo waxgaradka degmada Wudud ayaa wafdiga wasiirka uga xog waramay xaaladda guud ee degmada Wudud ku soo dhawow waa magaaladaadii waxa la wasiirkii koobaad ee Soomaaliland ka yimaada ee aan soo dhaweeyo waa kow waa degmada ciidankeedu iyo amnigeedu isku filan ee joogta weey waa degmada arrimaha bulshada u diyaarsan inay qabsato qiimo leh oo aan kala had lahayn oo kaliya laaba oo niyad fiican baan ku soo dhaweynaynaa waftiga waxaanu rajaynaynaa inaad qaban doonto biyo noo keeni doonto oo riigo noo qodi doonto anagu rajo wacan baan markii lagu doortay halka lagu doortay ka qabnay waanu rajaynaynaa Salebaan Yuusuf Cali Koore aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu ku soo dhaweynaynaa deegaanka Wudud oo ah deegaankiisii wasiir deegaankaaga ku soo dhawo marka hore codsiga ugu horeeyay deegaankan ama ay kugu soo dhaweynayaan deegaankan kugu soo dhaweynayaan waxa weeye inaad horta marka ugu horeeyay riig oo baahida noogu ballaaran ay tahay riig inaad magaranaysaa barnaamijkaas aad nagala qawl qaadato iyo aad baan uga mahadnaqayaa soo dhaweyntii milguhu ku dheehnaa iyo sharaftii iyo karaamada aad nagu soo dhaweyseen waftigayaga ballaaran ee maraya meesha ka xukuumad ahaan iyo ka odayaal ahaanba uma iman Wudud anigu in la igu soo dhaweeyo in la igu sawirana umaanima hadalka ay odayaashu ii sheegeenna xusuus buu igu reebo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markaanu wax qaybinaynay hortiisa ayaa biyaha wixii awooda aanu ku qaybinay oo waliba madaxweynuhu u sii halahalayay hawdka deegaanka ilaa iyo hadda waxaan hawdka u hayna 3 ceel ayaa jira wax gacanta ku jira maanta ceel waxaan qorshuhu yahay in mid Wudud yimaado dhinaca kale waxa wafdigani si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanka Goljanno ee gobolka Sool iyagoo halkaasi ay ku qaabileen wafdiga wasiirka shacab weynaha deegaankaasi Goljanno ee heer walba leh ee bulshada noocyada baan isku jirta ayaanu halkan ugu soo dhaweynaa waa wasiirkii koowaad ee intuu carradu baanta u soo kaco ugu horeysay deegaanka Yaxye isagana taariikh gaar ah baan noo qoray isagana taariikhda qori doonta haddaan nahay beesha tan oo beesha maanta kalsooni ku qabta xukuumadda jirta in iyadu dhagaheeda ay hoggaankeeda qabato wasiirka biyaha iyo horumarinta baanu mahad celinaynaa iyo wafdada ballaaran uu hogaaminayay waa maalintii koowaad ee wasiirku noo yimaado waxaan filayaa de madaxdii kalena waa ka dambaysayna waa noo iman doontaa madaxweynuna waa noo iman doonaa intaba soo dhaweyn baanu leenahay waa soo dhaweynaynaa wasiirka iyo wafdigiisa ballaaran gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waxaadna tusteen milgu iyo sharaf iyo qiimayn iyo u heelanaan iyo sida aad dawladda Soomaaliland u soo dhaweynaysaan ma aha oo kaliya inaad Salebaan soo dhaweynaysaan Salebaan haddaan ahay shakhsi caadi ah oo shakhsiyada ka mid ah baan ahay laakiin marka aan wasiirka wasaaradda biyaha ahay waxa weeye xukuumaddii iyo mas'uuliyaddii iyo madaxweynihii iyo golihii wasiirada sharaftoodii baad igu soo dhaweyseen idinkana waxaan idin leeyahay ilaahay idin soo dhaweey waxaan qirayaa anigoo jooga halkan inay ka muuqato inaad Soomaaliland si buuxda u taageersan tihiin calankeeda iyo ciideeda xaqin codsigiina biyaha ka wasiir ahaan waxaan ballan qaadayaa awoodi meel ay dhigtaba inaan maanta hortiina ka ballan qaado
inaan waxa ugu horeeya ee fursada ee wasaaradda soo gala ee biyaha ah inay Goljanno yimaadaan. safarkan wasiirka wasaaradda horumarinta biyuhu ku gaadhay deegaano badan oo ka kala tirsan gobolada Sool iyo Buuhoodle ayaa ujeedkiisu yahay u kuurgalida xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanadaasi iyo sidoo kale sidii uu wax uga qaban lahaa baahiyaha dhinaca biyaha ee ka taagan waqtigani deegaanadaasi. Samiir Saciid Bila Kalsan TV, Laascaanood.